jigjiga waxaa lahaa 5 reer ba hoos tagi jiray jigjiga way tarantay 10 bay noqotay degmo aw bare halkii un bay fadhidaa waxa ku soo biirtay harawa jigjiga aw bare abri bayax xarshin marba la wada magacaabo isku xilli bay ahaayeen jigjiga waxaa lahaa 5 reer ba hoos tagi jiray bartire yabaree akisho geri iyo jaarso waxa dibadda loo tuuray laba isku xaafad ama isku qoysa waa akisho iyo jaarso waxa ku haray 3 isku xaafada jigjiga way tarantay 10 bay noqotay degmo 10kii degmo bay iyaga iska qaatay hadduu xildhibaan ka soo baxay iyo hadday dhaqaale leedahay hadday horumar leedahay hadday magac leedahay 3 walaalaha iska qaatay aw bare halkii un bay fadhidaa waxa ku soo biirtay harawa iyo la faciiso imika ay magacaabana meel ka dhac lagu sameeyay umay qalmaynin de wala in leeyla waa kawsar umay qalmaynin tanna 10 bay noqotay tanna halkii bay fadhidaa qabri bayax 4 reer ba wada lahaa abaskuul akisho isaaq iyo gabooyi 2 reer cirka loo tuuray waa akisho iyo isaaq reer bay u tarantay u noqotay 3 degmo oo cusub ay ku darsadeen iyo degmadii aan wada lahayn oo iyaguna ay iska haystaan aqlabiyada ay kolba iska biirsadaan mandara ugu mula waa santaro mandara ku haray qabri bayax waa iyaga waxba kama dhilmaan xarshin halkii ingiriiska Hayle Silaase ku magacaabeen u bay fadhidaa haddaba kuwan maxay ku heleen inay inta noqdaan degmo Soomaalidu Allah u naxariiso wadaad abtiyaday kamid ahaaba oran jiray loo yaqaanay doobiye awrka reeber sidii u doobiya ninba waxbu ku sheegi jiray markuu reerka taagantu doobta si adag ugu dhufan jiray warwaa sidee waa labadii kolka hore guuxayay sida uu ka doobgulaanke nin la u doobiyay wuu oran jiray kuwan waxay taa ku heleen nin la u doobiyay waxay ku heleen midnimo 6 qabiil ayuu galatuniya garaab yahay luqad kuma wada hadlaan qaar baa faroma ku hadla ogaadeen jidwaaq weyteen baalcad gelimays iyo waleembo kuwan maxaa dib u dhaca ku keenay degmooyinkan aan magacaabayo iyo annaga yaan fadhiga ka hadlaynaba waxa ku keenay kala daadsanaan iyo midnimo la'aan iyo reer walba meel lagu xidhay ayaa keentay ilaa ingiriiska Hayle Silaase waxaan idhi aqoonay waxba hatayn aw bare waa sideedii ya ilbaxo waxba hatayn xarshina waa sidii uu reebel baa ilbaxa isaaq waa ilbaxa ma jiro samaroon baa waxa aqoon bartay ma jiro maxaa keenay midnimo la'aanta weeyaan taasaa baabi'isay waxaan leenahay haddaba annagoon cidna duulaan ku ahayn maadaama ay walaalaheen inna dulmiyeen xaqaan lahayn iyo kay lahaayeenba isku darsadeen ya innaga oo si sharciya u dacwoonayna annaga oo ah dirka degmada qabri bayax iyo harooreys xaqa aan leenahay labadii goboleen isku darsanay maadaama walaalaheen waxeen iyo waxoodii ay wada qaateen horumar haday tahay iyo degmooyin la magacaawdiyo gobol haday tahay innagana ayna waxba inagaga darin dambal iyo gaashaamo baribal inta u dhaxaysa dhultay maxaa ka samaysan horumar Hayle Silaase sidoo ogaabay dhulkan yahay xiitaa wax uga dambeeyay ma jirin horumarka Itoobiya ka socda ma soo gaarin wadankan walaalaheen baan inaga hor joogsaday wax walbana isa siiyay si sharciya inagoo u dacwoonayna oo qaab sharci soconna inaan dawladda federaalka waan u simanahay Itoobiyaan baan nahay ciidan lagama Itoobiyaansana dadka tabanka wajila kolba wadan ku yaacayana anagu ma ihin dadka wadankan u dhashay wadan kale aan lahayn baan nahay si sharciyan u dacwoonayna ila dawladda federaalka walaalahayana ha ku soo biiraan shirka aan qaban doono waan u gubasha anaga u fidinayna kaalayaan leenahay ayayna aan ka wada tashano si sharciyan walaalaheen u kala baxayna ha iska haystaan aqlabiyada sheegana inay sameysteen wuxuu yiri gabayaan hadhow xilli dambe aan sheegi doono degmooyinkay magacaaban
degal aan cidi joogin daarahay ka dhisaan doorashay ka rabaan ma duurka u codayn meelaan wadanba cidiba joogin ayay daara iyo degmo ka dhisayaan oo leeyihiin degmo hebel weyn waxay inaga tirtirayaan hadday iyagu awoodaan inaynan deegaanka waxba ku lahayn waan sa kuleenahay Ethiopian baan